waxaan nahay beesha walaalihiina jajeele waxaan wadnaa ciidan waxaan wadnaa raashinkaas walaalayaal heel iyo hoo waa idin garab taaganna ahalnimaan idiiga guddoonnay waxaan idiiga guddoonnay gobolka hiiraan waxaan xawaadle ahayn maantay gurmadkii noogu horreey oo noo yimida adinka ah beelweynta jajeele oo ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan islamarkaana ku suntan la dagaalanka kooxda raxanka daran ee eeyaha naarta ogus ayaa maanta waxay degmada Moqokuri iyo walaalahooda xawaadle soo gaarsiiyeen gurmad isugu jira deeq raashin ah xoolo nool iyo sidoo kale ciidan ay ku garab istaagayaan la dagaalanka argagixisada ee xawaadle ay ku jiraan muddada fog Cornel Isaaq Cali Cabdulle taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda beesha jajeele ayaa maanta geel raashin iyo sidoo kale ciidan waxa ay la soo garab istaageen walaalahooda xawaadle goobta ay beesha jajeele ku wareejinayeen raashinkaasi iyo deeqda geela ah waxa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ku metela beesha xawaadle oo ka mid yahay xildhibaan Maxamed Buraale Raaxeeye iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle wasiir Daahir Karoore iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye odayaasha dhaqanka ee metelayay beesha xawaadle ayaana u mahad celiyay beesha jajeele sida ay u soo garab istaageen isla markaana sheegay in ay yihiin beeshii ugu horeysay ee xawaadle ka koreysay ee reer Hiiraan ah ee soo garab istaagta dagaalka ay ku jiraan xawaadle walaalayaal annaga waxaan safar ugu nimid xaruntii gobolka Hiiraan gaar ahaan degmadii Beledweyne halkan waxaan u nimid dhibkii ka dhacay iyo dhibaatadii weli sii socoto ayaan halkan u nimid waxaan nahay beesha walaalihiina jajeele waxaan la jiifan weyno oo meeshan joogno u joogi weynay dhibkii halkan ka dhacay dadka walaalaha iyaga ah oo aan dhiig iyo dhaqan iyo dhacaanba wadaagno waxa weeyaan laba indhood kala murudaan nahay waa waxaan isku leenahay xaq isku leenahay derisnimo isku leenahay ehelnimo isku leenahay sidaas darteed baan halkan u nimid waana guuleysanaynaa insha Allah meelna ku kala maqnaan mayno waa guuleysanaynaa waxaan wadnay neefafka geela oo aan halkan annagu hadda geela xiriyoba nooga buuxay aan meelahan ka gadnay iyo raashinka meesha yaallo oo ka kooban 50 kiilo bariis ah 20 sokor ah 10 saliid ah iyo timir 25 ah intaas wadnay waad ogtiin dagaalka maalinta dhacay iyo waxaan ka tabaabashaysanay beesha ay iska warsatay ma ahan oo dad is ag joogan baa iska soo warsaday intaasna qabiilnimo aan ku bixinaynaa walaalayaal naga gadooma tulnimana oo gadooma lagu weyneeya lagu qaata waxaan naga mudneedeen ma ahan ka badan baad naga mudneedeen laakiin waa u wada dhalanay wax yar iyo wax weyn soo dhawaada walaalayaal waana mahadsantiin salaatu wasalaam ala rasuulillah gudoomiyaha dhameeyay walaalayaal waan idin ognahay annaga laftayna difaacan ka soo baxno rag baan annaga laftayna 10 sano difaacan taaganahay walaalayaal insha Allah ta'ala waa dhamaanaysaa wiilka maanta geeriyoodan waa shahiid midka noolna xurnimaas ku noolaan haddii uu rabbi yiraahdo walaalayaal raashinkaas oo gudoomiyaha sheegay iyo neefkan geela waxaan u keennay dib ka dhacay beesha walaalahayna ee xawaadlo insha Allah ta'ala haddii oo intaan isu tagnaan dhahan maxaa la geeyaa intaan ka badan la keenin lahaa marka waxa waaye isma warsanin inta ka kacay heed walaalahay marka insha Allah ta'ala naga gadooma walaalahayn inta dhimatin Allah u naxariisto waa shahiid waaye waa shahiid wax loo tacsiin ama la shahiid waayo cadowgan waa ka guuleysaneen hadduu rabbi yiraahdo meel kastana saan waaye meesha la yiraahdo ceel bardo iyo degmada Beledweyne inta ka dhaxaysa wallahi difaac loogu jiraa habeen laga hurd maan laga hurd marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaa Moqokuri iyo ceel bad inta ka dhaxayso nabadgelyo ah hadii uu rabbi yiraahdo intaas oo nabadgelyo ah oo sunmaan rajayn doonaa waxaan wadnaa ciidan waxaan wadnaa raashinkaas walaalayaal heel iyo hoo waa idin garab taaganna hadii uu rabbi yiraahdo hadii dhiig loo baadan shubayna
haddii hiil loo baahan yahan taagannahay haddii wax kastaan la taagannahay walaalayaal beesha xawaadle ha guulaysato walaala cadow allah ninka jebiyo waadna guulaysanaysiina yaaysan dhicin niyajab wax la yidhahdo ma jiraan gabar intay naga dambayso walaal waan dagaalamayna hadduu rabbi yidhaahdo waad dagaalanteen geesiyaasha hawii baa tihiin wax sax waaye wax la ogyahay waaye taariikhda Soomaaliya maanta geesiyaasha hawiyo oo hormuudka tihiin walaalayaal waa mahadsantihiin jazaakallahu khayran laga gadooma waa mahadsantihiin walaalahayno waa idin soo salaanay in kastoo aan soo daahnay raalli ahaada daahitaankii ka raaligelina walaalahayna tihiin abaalkaad hadda ka hor noo gasheen ma gudi doonno ilaa aan danaha leenahay ka gaarna walaalahayno taxsiyaan nahay waxaan taxsiye ka nahay daahitaankaan ka soo daahnay noo dulqaata raalinaga ahaada wixii marka aan wadanna waa yar yihiin ma mudnidiin laakiin haddii aan iswaraysan lahayn inaan daahnaan ka baqnay annagoo awl dib u dhacnay inaan sii daahnaan ka baqnay waxaan wadanna oo taxsiye ay weliba nolosha raalahaada ay la socota inaad naga wareejisiin raalli ahaatiin walaalahayna tihiin waa ku garab taaganahay hadda ay dhimashataan ku garab taaganahay hilliho waxaan kaaga haraa male laba indhood kalama hurdaannahay walaalahaynow daahitaankan kaa soo daahay ayaad raalli iga ahaanaysaa wixii yaroo wadana adigoon micnaha dhaliilaynin walaalkaya tahay kow ma joogi waa dambeeyaa inta hadda gacantayda ku jirto si farxad la iga gadoomi waa i garab taagan tahay waana ku garab taaganahay meel iskiga harayna ma lahan hadda ka hor hay dhacday hadda ay weli socotaa waana dhici doontaa haddaan nool nahay inta dhimatay Allah u naxariisto inta nool Allah ha caafiyo laakiin waxaan ogaanaynaa ama aan isku ognahay ama aan isu garab taaganahay mar kasto ay wax idin gaaraan garabkaadan taaganahay weligaa ha taagnaan jirtay inaan kaa harma ahayn inta aan kaa daahina 110 raalliga ahaw wixii aan wadanahay ugu dhaliilin waa yar yihiin waa ogahay isma waraysanin in yar oo markaas ay seen waxyeelna tira inta soo garatay intaan soo gartin ay weynayso inaad iga macnaha codsana intaas ayada inaad raalli iga ahaato taxsiida saan wada walaal tabarta suweyn iga haw walaalkeeyo shalad garab taagneed waa ku garab taagnaan doona raallin iga haw xoolaha aan wada oo nool mood leh inaad farxad iga wareejisay intaasna waa codsana warkayga leeg sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah ilaahi mahadsan subhanahu wa ta'ala hadana allah mahadsan mar saddexaad allah mahadsan adinkuna waa mahadsantihiin walaalahayna jajeelo waa mahadsantihiin wax alla waxaad noo keenteenna sidaad noogu keenteen aan idiga gudoonnay oo geelaas iyo raashinkaas ah iyo gurmadkaas aad noogu timideen waa idiga gudoonnay walaalnimaan idiga gudoonnay ahalnimaan idiga gudoonnay waxaan idiga gudoonnay gobolka Hiiraan waxaan xawaadle ahayn maantay gurmadkii noogu horreey oo noo yimid adinka ah waxay cadaynaydaa inaan dadka isaga sokayno waxay cadaynaydaa meesha nooga tiileen meeshan annaga aad nooga tiileen inaad adukuna aad nooga tiileen intaasay cadaynaydaa waa idin soo dhawaynaynaa waa idin mahad celinaynaa ilaahay mahad leh adinkuna waa mahadsantihiin Soomaalida gobolka Hiiraan ama Soomaalida meel kasta joogtana waxaan leenahay dagaalku ma ahan dagaal qabiil waa dagaal ku wajahan islaamka dhan waa dagaal ku wajahan Soomaaliya waxaan leenahay cid walba ku dayo walaalahayna maba la gaari karee cid walba ku dayataan leenahay wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadsan mahadan la koobi karin marka labaad waxaan u mahad celinaynaa walaalaha qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta leh ee jajeele ee saakay noogu yimiday gurmadka waa mahadsantihiin aan idin leenahay 100% waad mahadsantihiin mahad badan oo haydi gaarto mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waad mahadsantihiin runtii waxa waaye nin markuu kugu jiiraan yahay ama uu kugu dhiig yahay ama uu kugu dhaqan yahay waxaad ogaataa markay dhibaato kugu dhacdo runtii marka inaan isku ehelnahay inaan isku dhiignahay inaan isku dhaqannahay in dhulku naga dhaxeeyo in dalku naga dhaxeeyo waxay ku tusaysaa dhibaatadu markay nagu dhacday sida idii taabatay
ee aad u soo gurmateen taasaa caddaynaysa inaan maaragtay isku dhaqan iyo isku dhiig iyo isku dal inaan nahay taasay caddaynaysaa runtii jajeelo waxa weeyaan Soomaalida reer Hiiraan Soomaali badan baa degta waa Soomaalida saakay xawaadle ugu horeyn doorkii koobaad ee soo hormartay waa jajeele insha Allah annaguna waxaan tagi doonaa markii sidaan oo kale inta culays ay u dareemaan ceel bardaan tagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qurac joomaan tagi doonaa gurmadkaas waa naga dhaxeeyaa heel iyo hoo waxa astaan u tahay midda aad muujiseen iyo garab istaagiina waxaan leenahay marka maalkiinana Allah barakeeyo muxuu ahay meeshaad wax ka soo bixideen wax ka qayr badan Allah ku bedelo cadawgana Allah naga guuleeyo macnaha Soomaaliyana afarta gees inta ama Hiiraan ka joogta ama dalka Soomaaliya ka joogta maanta dagaalkan waa dagaal macnaha siyaasadaysan adduunka laga soo abaabulay haddii alla ku raayo in Soomaaliya lagu dumiyo lagu talagalay meel kamida gobolada dalka haddii dagaal ka socdo in la isku fiirsado maahan dagaalka nimankan ay soo jihayeen yaan la isku fiirsan macnaha ilaahayna naga guuleeyo ha lagu daydo walaalahaas haddii la ku raayo reer jajeele ha lagu daydo reer Hiiraanow ku dayda jajeele رب العالمين xildhibaanada federaalka ah ee reer Hiiraan xildhibaan raaxay inay joogaan iyo Adran Gurey wasiirka arrimaha gudaha dowladda Hirshabeelle gobolka gobolka dhammaan odayaasha akhyaarta noo timid waa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib walaalayaal halkan waxaan u maleynayaa 3 sano oo dhow ayuu socdaa maalintii aan ka soo bilownay meeshii la yiraahdo Matabaan ilaa hadda marna iskuma moogeen حكتها اسكجرو هولك الله لو كلا مشغوله دفاع أنا سيدي سوي دفاع بلارن واي عدو ميل بوجوجا عن آدي أدو فرحسناه تذك الدجن ديجان كان هذا أنا جوجي عدو اسك دفاعي عدو الصومالي ميل والبمركو سجيمت جنب كأول ديجان هذا أديدي قول إن رجينا إن شاء الله تعالى وأنت قولي ستين قولوا إذا رجينا وإذا دعينا ما أنت وحنا كون بدنا إذا قرب استاجر هرج جل إذا قرب استاجر أنا وحنا تريها غيبت بوليس قبل كيران بوليس كانوا واسعة بيشنا واسعة لبض ومضحن واحد وعربنا أمريكا ضدك الصوماليات والعدو كان وعدو الصوماليات واحد عدو دينا مجرت دبق عضي صومالية نقول ورجع ما أنت بقول كوري محاس أي شباب مال الجيران سجين بعدين كرد جي هنا ربعنا قفصدان أجي كلنا ويكسر بحين ضدك الصوماليات وحلا جربها كستا ku aadani walba waxbadiis ka soo bilaabo sida cadawgan loo awoodiis loo wiiq yaana loo fiirsan dadkan dawladda federaalka ah ciidamadeeda waa dagaalka way joogaan laakiin waxaan leenahay dhaliil jirto waa inay maartay ay soo kordhiyaan oo ciidamadii deegaanada kale ka dagaalamay si u joogeen oo kale inay loo keenal rabaa wax badan aan tabaynaa walaalayaal wada garab taaganahay hadda tasmaan imaanin garab istaagiina u nimid inaan idin garab taaganahay habeen iyo maalin oo nafna idin ka akhrinaynin horena isu garab taagnayn maantana is garab taagnayn intaas rabnaa in ogeysiino soo dhawaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa horta dhammaan inaan u mahad celiyo walaalaha beesha Jajeele runtii kaalin weyn iyo gurmad u soo suubiyay anoo ku hadlaya magaca reerkan iyo magaca xildhibaanada reer Hiiraan dhammaantood anoo ku hadlaya isaaq iyo Jajeele markii ugu horeysay ma ahan dagaalkan markuu bilaabanay heesan ugu imaaday soo ciidankiisa wato soo reerka Jajeele ay la socdaan furmaha dagaalku waa badan yahay laakiin Moqokori waa lama taabtaan waa meesha ay rabaan shabaab inay dadkan ka soo afjaraan sidii ay masjid al guduud ugu dagaalami jireen waa meeshan lama taabtaan waay Moqokori waxay rabaan inay qabsadaan ay dadka niyad jabshaan oo soo xawaadle iyo reer Hiiraan oo dhan ay u dhamaato laakiin Ilaahay ma dhihin salaan kadib runtii maanta farxad inoo tahay balwiinta Jajeele oo ah curadka ummadan marka si gaar loo yiraahdo reer hawiye curadkooda ah curadku hadii uu fadhiga ka kaco dadka kale oo fadhiga ka kacaan marka waxay noo muujinaysaa mar hadii maanta aad timaadeen horona reer xawaadle dagaalka ugu jireen insha Allah taala qabaa'ilka kale iyo ummadda Soomaaliyeed oo kale inay isku soo dayo doonto hadii alla idmo weydiin mahad celinaynaa insha Allah taala waxaan leenahay waa mahadsantihiin ma aha maanta kaliya waxaan la socdaa aniga dhowr jamhadood iyo dhowr dagaal oo Hiiraan la galay oo runtii qabiilka kaliya oo reer Hiiraan xawaale kala baxay oo furunta kala soo dagaalamay oo la xureeyay gobolka Hiiraan inuu ahaay reer Jajeele
markaasna uu horkacayay ninka garabkayga taagan dadanka xusi karo Isaaqal Cabdulle runtii waa wax leedku yaqiinay waa wax maanta aadan bilaabaynina waa idin mahad celinaynaa qabaa'ilka kale oo Soomaaliyeed oo reer Hiiraan waxaan leenahay wastabaqul khayraat ku daysada jajaala ku daysada maxaan ku sheegaa in furunta inaad timaadaan waan idin mahad celinaynaa mar kale dhammaan bulshooyinka reer Moqori waa salaama beesha reer jajaale ee gurmadkii ugu horeeyay reer Hiiraan oo garab istaag leh oo xoolo iyo rag leh na soo gaarsiina waxaan leeyahay waa mahadsantiin waxaan u mahad celinayaa beesha reer jajaale siyaasiyiintooda dhaqankooda korneelka booliiska gobolka Hiiraan odayaasha dhaqan oo la socoto meeshii la isaga imaalahay noogu yimideen waana ka fileen waxaan rabaa inaan reer Hiiraan kala fariin u diro oo reer Hiiraan waxaan nahay dad beer ah waxaan nahay dad hilib ah waxaan nahay dad dhibkaano aan lagu fiirsan waxaan rabnaa reer Hiiraan inay sida reer jajaale noogu soo gurmadaan waxaan rabnaa odayaasha dhaqan ee Muqdisho ku shiray oo hawiye waxaan rabnaa maanta maalin la sheekaysan doonaa hawiye waxaan rabnaa inuu arinta ka dhabeeyo hawiye waxaan rabaa inuu la soo garab istaago hawiye waxaan rabaa inuu caddeeyo warkiisa waxaan rabaa gobolada diriska walaalaha diriska dad kasta Soomaaliya argagixisada caalamiga ee ka timid adduunyada iyo Soomaaliya meel kasta ay degan tahay inaan loogu sugin ma isdhiibayno ma taqaana ma calayno waa dhimanaynaa waa shahiidaynaa waa dagaalamaynaa 2 sano iyo baraan dagaalamaynay waana dagaalami doonaa Moqokurina waxay noqon doontaa meel taariikhda gasho